سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو markasta oo aad barato xirfad cusub waa markasta oo ku furmo albaab cusub للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو بسم الله الرحمن الرحيم دمان أمد الصوماليات ملك سوء جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام قيمة بدن كذب وحن ما أنت هل كان يدقس وجدنا يا حلقة التضباط أهنا حلقة وجودا بيسا برامج كهمي إيه هرمر برامج كاس أورنتي أنا وقصوا هذا لني qofka bani aadamka sidoo nolosha ugu guuleysan karaa iyadoo aan soo qaadanay xalaqooyin kala duwan oo xalqo kasta aan u hadlaynay mowduuc aan arkaynay inuu yahay mid kamid ah mawaadiicda ugu muhiimsan ee insaanku hadii uu si fiican u qaato horumar u gaari karo maanta waxaan qaadan doonaa mid kamid ah mawaadiicda ugu qatarsan ee bani aadamku uu ku guuleysto taas oo ah barashada xirfado cusub يعني قفكو إنه مركز تبرته حرفات عصب أو سنجرينين وحي أسر تجرينيسا إنه جاره ماله وين أما ماله فك أما جوله بلارن إنه جاره عيرونتي أسر تجرينيسا مركز تو أو أبرته حرفات عصب ومركز تو أو كوفر مو الباب عصب هكذا كنن مركز تو أو أبرته حرفات عصب وحكوفر مدونة الباب عصب أي كوفر مدونة أي كوفر يسو حرفات داس عصب أي أقوان تاس عصب أو هنتي آدي أدو قرصتي أو آدي مهم مركز ماشي أسلجو ضد فرد بدن أو هنتي وحاجر حرفات النرش أي لهاين كوجوليستين مركز استعمالين سيستحى استعمالين ما أنت وحن سوق عدد دونا مد كمدة قصوين كأما شيكوين كجوش النرشة أو هنتي أو سميين اللي يراهدو فهد الأحمدي فهد الأحمدي ومد كمدة قراياش وعنصر العالم كعربته قارهان دلك السعودية العربية وقراوي وين وانين بوغ بدن قري اللي في وانين مد كمدة جورنال وقتر دلك السعودية العربية رنتي كأه قراءة رسمية وحكو قراءة نكان وحوليه قصة عجيبة أو قصة عفسن لي هذا قصة بوش النلاشة سيدو كو جوليستي أما جول بالله رنتي نلاشيس أو كو جاري فهد الأحمدي wuxuu dhigtay jaamacado fara badan oo ay ku jiraan jaamacad la yiraahdo Malik Abdul Aziz ee ku taala magaalada Jidda iyo jaamacad dalka yaani dibadda ah oo uu ku qaatay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota meel fara badan jaamacadahaas ayuu soo galay wax ayuu ka soo bartay jaamacadahaas laakiin nasiib darro jaamacad ma uusan dhammayn oo mar kastaba jaamacadda wuxuu uga tagay meel dhaxa ayuu uga tagay markii uu aaday u safray dalka Mareykanka oo jaamacadda uu soo qaatay jaamacadda ma uusan dhammayn asoo jaamacadda dhammayn ayuu wuxuu go'aan ku gaaray inuu laabto oo u laabto dalkiisa hooyo ee Sacuudi Carabiya si uu uga shaqeeyo laakiin markii dalka uu ku soo laabtay oo Sacuudiga uu yimid runtii wuxuu la kulmay wajigabax fara badan wuxuu la kulmay eedayn uga imaanaysa dhanka qoyskiisa aabihiis hooyadiis saaxiibadiis dadkii yaqiin oo dhan oo ku oranaya madunida ayaa inta tagtay ayaa adigoo jaamacad soo dhamayn ka soo laabata markaas waxaa laga dul dhacay noloshaada oo dhan waa mugdi xagee aadi maxaa qabsanay maxaad qaban doontaa waxaad noqon doontaa darbiye jiif wax kasta runtii ayaa laga dhacay Fahd al-Ahmadi wuxuu ka sheekaynayaa qisada noocaas iyo waxa qabsada asiga marka wuxuu leeyahay guriga waa ka carari jiray sababta guriga waxa ugu haysta walwalkaas iyo wajigabaxaas iyo eedaas iyo waxa soo dhan marka wuxuu u carari jiray qaxwooyinka iyo cafeteria iyada iyo meelaha lagu sheekeeyo marka wuxuu leeyahay maalmaha kamida anigoo fadhiya qaxwo ayaa laba nin oo sheekaysanayso oo iyagu sheekada isku jiibinaya ayaa ag fadhiista labadii nin marka waxay leeyihiin ama ay ku sheekaysanayaan ay isku jiibinayaan niyow hadaad rabto nolosha inaad ku guuleysato waxa aad ku fiican tahay awoodda saar يعني رادي واحد كفي عن صاحي كدبنا أود صار إيوه كوشة كيسنا يعرفون هاي مركز أيان warkii ayaan fikrad ka qaatay qalow ay ugu soo dhahday meeshiyaan ka tagay meel kale oo deganaan tagay waan fadhiistay markaan fadhiistay waxaan ku fikir u dhahay war ma jirtaa wax adiga aad ku fiican tahay oo ku wanaagsan tahay ma jiraan markaasaan maskaxda rugrogu dhahay waan rogay markii dambe waxa ugu soo dhacdo dhahay inaan aad ugu fiicanahay writing skills wax qorista يعني waxaan ahay qof wax hadii uu qoro wuxuu qoro dadku ay aad iyo aad ula dhacayaan
markaasaan farxo dhaasas dhaho dhahdiyaha yaa ka gadanaya xirfadan yaa qorista u baahay wax la qoro markaas waxa ugu soo dhaco dhahay inay u baahan yihiin joornaalada dalka Sacuudiga adduunyada joornaalka lacaga fara badan ayaa lagu qaataa inaad wax ku qorto hadaa tahay qoraacana oo hadalkiisu uu aad u macyahay lacag aan caadi ahayn ayaad ku qaadanaysaa markaas wuxuu dhahay waxaan raadiyay qof iga gadanaysa ama sameynaysa waxa la xiriiray intaas oo joornaal mid kasta waxaan u diray qoraal waxaan leeyahay qoraayaan ahay waxbaan qori karaa waan idin shaqeynaya wuxuu dhahay hal sano iyo bar ayaan raadinayay cid ii soo jawaabtana waa waay qof kasta waxay leedahay dhahay jaamacad kama bixin naga tag nadhaaf wuxuu dhahay ma quusan waan raadiyay hal sano iyo bar markaan joogtay oo aan raadinayay ayaa waxa ila hadloo dhahay joornaalka Al-Madiina leeyahay وجريدة المريضة ذلك السعودية العربية كسر بحضها جورنال كاسا نينك مدحنا كأهي وحوله هو دهي أوكي واي هي أن إسقابلنا يعني عن إصلاح هذا هنا ما نقول بلا شيء مركو نقول بلا شيء واشا كيسنا محا صبرتي محا تهاي محا تقانا سوى تقانا وحنا أشياء وح مركا أشياء إيه وح مركا صهوجا يرون يد شو هاي كني وفكري كده وحوله هو ده وقت تجابينينا يعني جورنال كان وحكو ساقر وحساقر لكن أجاو مدلح بالوضع وحنا قادريس يعني لح بالوضع لو سيها يا مرة أنكو أرجنو أنكو تجابينه وحنا هو ده الحمد لله هو ديارنا هل يتجابين وحن بالله ده جريدة ده أيام كل بالله إنا وحكو قرب أيام كل بالله فهد الأحمدي جورنال كمركو كب اللابي يعني قيب وحولها اللي يراهدو أدونك أي عالم أو هذا لايو وحول نقضي جورنال كي أد أيو عن نقضي والله جعل هذا نك قرآن الذي سنين قرآن عجيبة هي نقضي أد بارنت الله جعل هذا مركي أو وحير أو عن نقضي وحاب الصوت البدر جريدة وين اللي يراهدو الرياض جريدة الرياض وحواي وجريدونك أدونك عالم عربي وعن قارهان سعودي عربي أد بيخطروا تعال يدي على أنك وحارب تقصينين markaasuu leeyahay jariidada hadda waxaan ka qaataa u dhahay oo Riyaad wixii bil waxaan ka qaadanaya jariidada Madiina ayaa hal maalin oo kaliya lagu siiyaa ninkaas waa nin aad u caana waa qoraay caadi ahayn wuxuu noqday qof oo caalamka carabta dunida carabta iyo Sacuudi Carabiya aad looga ixtiraamo buug far badan ayuu leeyahay dhaqaalaha soo gala ma malayn kartid ninka marka muxuu ku gaaray qisadiisu waxay ku saabsan tahay muxuu ku gaaray arintaas wuxuu ku gaaray hal xirfad oo lahay oo si fiican uga shaqaysiya xirfadaas oo la yiraahdo wax qorista ama writing skills runtii oo aad iyo aad u waxaysa waxaan rabaa marka wax yar inaan fiirino maxaa cashiro ah oo duruus ah ee ku jira oo ka baran karnaa ninka la yiraahdo Fahd al-Ahmad qisadiisa منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأسن ففيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد